magaca saxda ah ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa Abiy Ahmed Cali wuxuu ka jeedaa qowmiyadda Oromada oo ah qowmiyadda ugu weyn qowmiyadaha shucuubta waddanka Itoobiya. Abiy Ahmed wuxuu dhashay 15 bishii 8 ee Agoosto sanadkii 1976. Abiy Ahmed wuxuu ku dhashay tuulada Beeshaasha ee u dhow magaalada Agoro ee gobolka Jima ee deegaanka Oromiya ee waddanka Itoobiya. Abiy Ahmed waxaa iska dhalay hooyo iyo aabbo kala diin ah balse isku waddan ah. Ra'iisul wasaare Abiy magaca aabihii waa Ahmed Cali waa muslim ku jeeda qowmiyadda Oromada. hooyadiina waa Teste Waldi oo Masiixiyad ama Kristaan isku khilaafsan yahay inay tahay qowmiyadaha Oromada ama Amhaarada. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waa ilmihiisa 10aad ee uu aabihii dhalay waana qofka lixaad ugu yar carruurta hooyadii. Abiy Ahmed hooyadii waa xaaskii afraad ee uu aabihii kursaday. Abiy Ahmed ciyaalnimadii waxa lagu naanaysan jiray Abiyota oo laga wado abeegii kacaanka oo ahayd xilligii dagaalka lagula jiray kacaankii dhergiga sanadkii 1974. Abiy Ahmed waxbarashada dugsiga hoose dhexe ilaa sare wuxuu ku soo qaatay magaalada Agoro ee deegaanka Oromiya. Abiy Ahmed waxa uu ahaa qof jecel waxbarashada ilaa yaraantiisii dad kale ku dhiri jiray inay dugsiyada dhigtaan. Waxa uu gursaday xaaskiisa Sinasha Tiyacho oo ku dhalatay magaalada Gondor ee deegaanka Amhaarada aslahaan ah qowmiyadda Amhaarada. labadu waxay ka shaqayn jireen ciidamadii difaaca Itoobiya waxayna isku dhaleen 3 hablood iyo wiil. Abiy Ahmed iyo xaaskiisuba ama marwadiisa Sinasha Tiyacho labadu waxay haystaan ama aaminsan yihiin diinta Masiixiyiinta ama Kiristaanka. Abiy Ahmed wuxuu ku hadlaa luqadaha Oromada, Amhaariga, Tigreega iyo luqadda Ingiriiska. Abiy Ahmed wuxuu shahaadada koobaad uu ka qaatay cilmiga computer engineering ee jaamacadda Addis Ababa sanadkii 2009. sidoo kale wuxuu shahaadada labaad masreeta uu ka diyaariyay jaamacadda Greenwich ee magaalada London ee waddanka UK. Abiy ilaa yaraantiisii wuxuu ahaa 14 jirkiisii wuxuu ahaa askari ilaa iyo 1991 wuxuu ku jiray ciidamadii isbahaysiga dagaalka kula jiray dergiga Haile Selassie kadib markii ay walaalkiisii weynaa ay dileen taliskii dergiga. burburkii boqortooyada Haile Selassie ilaa iyo 1993 wuxuu soo qaatay tababar la xiriira militariga iyo sirdoonka ilaa haddana wuxuu ku tirsan yahay ciidamada qaranka Itoobiya. sanadkii 1995 Abiy Ahmed wuxuu ka mid ahaa ciidamadii qaramada midoobay ka socday in madaalinta uu joogay xasuuqii xumaa ee ka dhacay waddanka Rwanda sanadkii 1994. sanadkii 1998 ilaa iyo 2000 wuxuu ka mid ahaa ciidamadii difaaca jiita hore ka dagaalamayay xadka Itoobiya iyo Eritrea isagoo qaabilsanaa sirdoonka iyo isgaarsiinta. Abiy Ahmed waxa lagu xasuustaa inuu dhowr ku soo laabtay dib u heshiisiinta deegaankiisa ama magaalada uu ka soo jeeday gobolka Jima oo marar badan ay dagaal ka dhaceen oo ku salaysan diimaha Islaamka iyo Kiristaanka oo u dhexeeya qowmiyadaha Amhaarada iyo Oromada oo dad badan ku dhinteen hanti badan lagu gubay. 2006 Abiy Ahmed wuxuu ka mid ahaa aasaasiyaashii hay'adda ammaanka ee nabad sugidda iyo sirdoonka isgaarsiinta Itoobiya ee loo soo gaabiyo INZA. wuxuu ka noqday dhowr hay'adood oo dawladeed oo ka shaqeeya warfaafinta iyo isgaarsiinta sida Ethiopian Telecom iyo telefishinka qaranka Itoobiya. wuxuu gaaray darajada gaashaan dhexe sanadkii 2010. Abiy Ahmed wuxuu bilaabay xirfadda siyaasadeed isagoo ka tirsan xisbiga Oromo Democratic Party ODP. xisbiga Oromada ayaa gacanta ku hayay gobolka Oromiya ilaa sanadkii 1991. sidoo kale wuxuu xubin ka noqday 4 xisbi ee isbahaysiga talada dalka haya Itoobiya ee xisbiga EPRDF. wuxuu xubin ka noqday golaha dhexe ee xisbiga ODP ee Oromada wuxuuna xubin ka noqday sidoo kalena shirweynihii golaha fulinta ee xisbiga EPRDF. doorashadii qaranka Itoobiya ee 2010 Abiy Ahmed wuxuu ahaa musharax matalayay degmada uu ku dhashay Agoro ee gobolka Jima. wuxuu noqday xubin laga soo doortay magaaladaas. wuxuu noqday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Itoobiya. ra'iisul wasaarihii hore Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa bishii Oktoobar sanadkii 2015 u doortay Abiy Ahmed wasiirka sayniska iyo isgaarsiinta. sanad kadib jagadaas Abiy Ahmed waa iska casilay. 2016 Abiy Ahmed wuxuu noqday madaxweyne ku-xigeenka gobolka Oromiya. waxaa xilligaas madaxweyne ka ahaa deegaanka Oromada madaxweyne Lima Migarsi. Abiy Ahmed ayaa sidoo kale noqday madaxa xafiiska horumarinta iyo qorsheynta magaalooyinka Oromiya. bishii 8 Agoosto sanadkii 2012 waxaa geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore Itoobiya Male Zenawi oo muddo 2 sano ah soo xukumayay waddanka Itoobiya. geerida Male Zenawi kadib waxaa talada dalka la wareegay ku-xigeenkiisii Male Zenawi oo ahaa Haile Mariam Desalegn ahana kusiimaha ra'iisul wasaaraha. wax kale oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya. ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn ayaa ra'iisul wasaare noqday sanadkii 2012 ilaa sanadkii 2018. intii xilka hayay waxa ka dhacay waddanka Itoobiya rabshado waaweyn. dad badan ay ku dhinteen dad kale oo tiro badanna ay ku dhaawacmeen
dadkaas ayaa dalbanaya in isbeddel lagu sameeyo dhinaca siyaasadda waddanka Itoobiya. Ra'iisul wasaarihii hore Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa 15 bishii Febraayo ee sanadkii 2018 ku dhawaaqay inuu iska casriyo xilka ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo weliba jagada gudoomiyaha xisbiga EPRDF oo xisbiga aqlabiyadda baarlamaanka Itoobiya. labadii bishii Abriil ee sanadkii 2018 ayuu baarlamaanka federaalka Itoobiya ansixiyay in Abiy Ahmed uu noqdo ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo weliba gudoomiyaha xisbiga EPRDF. xisbiga EPRDF waxa ku mudoobay 4 xisbi siyaasadeed oo ah deegaanada waaweyn ee Itoobiya sida xisbiga ODP ee gobolka Oromia, xisbiga ADP ee gobolka Amxaarada iyo xisbiga SEPDM ee shucuubta koonfurta Itoobiya iyo xisbiga TPLF ee deegaanka Tigrayga. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa khudbadii soo dhaweynta ahayd ka jeediyay baarlamaanka federaalka Itoobiya waxa uu sheegay inuu ballan qaaday inuu dib u habeyn siyaasadeed ku sameyn doono guud ahaan waddanka Itoobiya in la hormarinayo midnimada Itoobiya iyo midnimada shucuubta qoomiyadaha Itoobiya, inuu heshiis la galayo dowladda Eritrea si loo xaliyo colaadda dabada dheeraatay ee ka tagan xuduudda ay wadaagaan Itoobiya iyo Eritrea. waxa kale oo Abiy Ahmed sheegay in wada hadal la furayo mucaaradka siyaasadeed ee gudaha dibadda Itoobiya. waxa kale oo ballan qaaday inuu xabsiyada ijraasha ka sii deyn doono dhammaan dadka ku xidhan arrimo siyaasadeed. khudbadda soo dhaweynta waxa ka dhalatay diilo aad u wanaagsan. waxa uu dareen wanaagsan ku beeray shacabka Itoobiya oo ay ku jiraan kooxaha mucaaradka ay ku sugan gudaha iyo dibadda waddanka Itoobiya. kadib khudbadii shacbiyadda taageeradii ay u hayeen dadka Itoobiya waxa uu gaadhay meeshii ugu sarreysay abid ee taariikhda hogaamiye soo mara waddanka Itoobiya.